الحمد لله الشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد walaalyaal dhamaantiina waa idin salaamayaa salaanka bacdi dhamaantiina maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo muxaadaro yar oo ku saabsan xibnahaada xibinka ugu qaalisan ma bukaa mise wuu caafimaad qabaa. su-aasha jawaabteeda marka muxaadarada dhameyno ayaad ogaan doontaa insha allahu tacaala. intaan guda gelin muxaadarada walaalyaal channelkan subscribe dhaha, like dhaha, share na dhaha, faafiya insha allahu tacaala. bismillah ikhwaani walaalayaal, maanta waxaan ka hadlaynaa sida aan kasoo hadalnay xibinkaada xibnaha ugu qaalisan ma bukaa mise wuu caafimaad qabaa. waxaan muxaadarada kusoo qaadanaynaa marka ugu horeysa waxaan ku bilaabanaynaa nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiiska uu ku leeyahay alaa wa ina fi ljasadi mulqa إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نبي صلى الله عليه وسلم حول ألا وإن في الجسد ملغة حبنها جرك وحاكو جرتو لها حبن إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا حبن تاس وناكسناتو حبنها هذا أردن وناكسنان ويان. وإذا فسدت فسد الجسد كله. حبن كاس هدي وفسادا حبنها هذا أردن وفسادا يعني. إذن ولا لي الحبن كاس وحواي حبن كاس وحواي وحبن قالئة وأد قيمة بدن محال حبن جير كلن هجامي وأسكري إيو معرفة مدحوينها جود جير كذا واي. حبن كاس وحو هجامي قعمة هذا لقى هذا عند هذا lugahaada jirkaada oo dhan ayuu hogaamiyaa, dareemahaada oo dhan ayaa ku xiran. ishaadu markay wax arkayso xibinkaas ayay u gudbinaysaa, dhegtaada markay wax maqlayso xibinkaas ayay u gudbinaysaa, carabkaada marka uu wax dareemayo xibinkaas ayay u gudbinayaa, gacmahaada markay wax qabanayaan xibinkaas ayay talada ka go'daa, jirkaada oo dhan talada waxay ka go'daa xibinkaas oo ay talada kasoo geyn xibnahaada oo kale wax ay qabanayaan malaha. marka idan xibinkaas waa xibin hogaamiye u ah jirka siduu nabiga sallallahu calayhi wasallam uu sheegay. xibinkana wuxuu dhahay alaa wahiya alqalbu. xibinkaas waxa waaye dhahay nabiga sallallahu calayhi wasallam qalbiga waaye, wadnaha. marka walaalayaal qalbiga waa hogaamiyaha guud ee jirkaada oo dhan. haddii uu qalbigaada hagaago jirkaada oo dhan wuu hagaagayaa. isha marka ay wax fiirinayso xalaal iyo xaaraan waxa talada ka go'daa waa qalbiga. marka qalbigaada marka uu maaragtay wax ishtoodo qalbigaada ayaa hogaaminaya isha. isaga ayaana ka reebi karo, isaga ayaana amraya, isaga ayaana ka joojin karo. hadduu qalbigaada fanacuud billaahi oo wasaqaysan yahay, isha wuxuu amrayaa in wax xun un raadiso ee wax xun fiirfiiriso. hadduu qalbigaada wasaqaysan yahay, afkaada wuxuu amrayaa inuu wax un ku hadlo, wax xumaan inuu ka hadlo oo xumaan raadiyo. hadduu qalbigaada wasaqaysan yahay, gacmahaada wuxuu amrayaa wax xun inay qabtaan. ilaan gacmaha amar un bay ku socdaan, waxba ma qabanayo ilaa qalbiga oo kasoo godo rabitaan qalbiga xaggiis ka imaatay. hadduu qalbigaada xun yahay, lugahaada wuxuu amrayaa inay meel xun aadaan, meel xun un baad istaagsanaanaysaa mar walba. fanacuudu billah. sidaa bilcagsigeeda hadduu qalbigaada wanaagsan yahay, isha wuxuu u diidayaa xumaato oo dhan inay wax xun fiiriso, wuu ka reebayaa. dhegtan inay wax xun maqasho wuu ka reebayaa. afkaadan inuu wax xun ku hadlo wuu ka reebayaa. lugahaada inay meel xun aadaan wuu ka reebayaa. gacmahaada inay wax xun qabtaan wuu ka reebayaa. idan qalbiga waa hogaamiyaha guud ee jirka. marka walaalayaal su-aasha waxa waaye maanta aan ka hadlayno xibnahaada xibinka ugu qaalisan oo qalbiga miyuu bukaa mise wuu caafimaad qabaa. dabcan adiga ayaa laga rabaa jawaabta. maxaa yeelay qalbiga buko wuxuu raadiyaa xumaanta oo kaliya, qalbiga caafimaad qaban wuxuu raadiyaa wanaagga oo kaliya. waxaad arkaysaa maanta fanacuudu billaah qof maanta oo dhan u dulqaadan karo 24 saac inuu dhageysto heeso. aayad quraan lagama yaabo maanta inuu mobilkiisa ka shito, laakiin wuxuu awoodaa maanta oo dhan inuu hees iyo filmaan iyo riwaayado u daawado. energy iyo awood badan ayuu u hayaa.
maanta oo dhan wuxuu awood u hayaa inuu meelo oo maaragtay masaajidna ahayn wanaagna lagu sheegin inuu aado lugahaadi. Gacmahaadana waxay awood u hayaan inay waxa Ilaahay raali keen ay qabtaan. Indhahaada sidoo kale waxa Ilaahay raali keen ay fiiriyaan. Qofkii xumaanta baa loo furay, wanaagina waa laga xiray. Markii la yiraahdo sadaqa la bax, khayr la bax, maanta soon ma awoodo. Maanta markii la yiraahdo wanaag oo dhan waxa laga saaray ciriiri. sida uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay kaanama yas'adu fi samaa, sida inuu samada kor la dhaho kale. wanaag oo dhan waxay ku yihiin ciriiri, fanacuudu billah. laakiin markii oo maaragtay xagga sharta waa loo furay, waa u fududahay inuu maaragtay waxun dhageysto, waxun fiiriyo, waxun maqlo, waxun cuno. inuu laakiin wanaag dhanka wanaag marka loo diraayo way ku adag tahay. marka walaalayaal qalbigaada wanaag haduu diido waa shay xun, fanacuudu billah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala suratul mudaffifin wuxuu ku dhahay kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, fanacuudu billah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadan wuxuu ku tilmaamayaa qofka kalla bal rana ala qulubihim, qulubtooda waxa daboolay oo dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma kanu yaksibun, waxa ay kasba jireen oo dunuubta. maxaa Nabi sallallahu wuxuu dhahay qofka dambi yar hadii uu galo qalbigiisa dhibac madow ayaa korayso. dambi kale hadoo galo dhibac madow, dambi kale dhibac madow, dambi kale dhibac madow. marka dambe wuxuu gaaray qalbiga inuu wada madoowaado. qalbiga haduu wada madoowaado qalbiga waa sidii muraayad oo kale. muraayad hadii ay wada madoowato waxba laga ma arki karo, isku ma arki kartid. marka qalbiga nuurka iyo iftiinka waa laga qaadayo, wuxuu noqonayaa qalbi mugdi ah oo maaragtay waxba aan kala ogeyn, xaq iyo baadil aan kala garaneyn. laakiin qalbiga markaas oo kale wuxuu gaarayaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. qulubtooda waxa daboolay oo dhahay dunuubtii ay kasban jireen Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxayna sababaysaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamo inuu qofkaas noqdo qof laga xarimay aragtida Ilaahay. qofka aragtida Ilaahay laga xarimay maalinta qiyaamana waa mujrim ahlu naar, fanacuudu billah. kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. marka qofka Ilaahay aragtidiisa laga xarimay maalinta qiyaamo wuxuu la mid yahay qof naxariista Ilaahay laga xarimay oo ahlu naar, fanacuudu billah. marka qalbigaada walaal iftiimi oo nuur ku iftiimi. qalbiga waxyaabaha iftiimiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay waxa kamid ah al-ilmu nuur, cilmiga waa nuur, wal jahlu dhalaam, jahligana waa mugdi. qofka mar walba oo cilmi barto cilmiga oo maaragtay iftiin iyo nuur ayuu helayaa. waxa kale oo kamid ah qalbiga waxyaabaha lagu nuuriyo salaada ayaa kamid ah. as-salaatu nuur ayuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. qofka markuu salaada Ilaahay dukado qalbigiisa nuur ayaa galayo, qalbiga nuur ayaa galayo. marka nuurkaasna nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyay oo qalbiga galayo wuxuu ku tilmaamay qofka in albaabada khayrka loo furo, albaabada shartana laga xiro. afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nuurun min rabbih. waxyaabaha nuurka lagu helo waxa kamid inuu Ilaahay qalbigaada ku sharaxo islaamnimada, oo Ilaahay wanaaga iyo khayrka islaamka uu leeyahay qalbigaada lagu sharaxo ee qof sharta oo balaayada ka fogaada inaan noqotid. فويل للقاسية قلوبهم أيو دا إله سبحانه وتعالى. نار وحي أسقناتي وداي كو قلبكو دا قلالي أو إنجيجي مركا ولا ليال إن شاء الله تعالى قلبك وحبنك حمنا أقوى ناكسن أقوى مهمسن حبنكاس أنك إلالينو وحيابها داوعي وحكم إذا إنو قفك جهلي كبتو إنو قفك شرطي بلايد أو مارتي وفرعون هذا خير كان ku adkaato inuu maaragto qofka laba ragco inuu dukado ku adkaato, salaad inuu dukado ku adkaato, inuu khayrka aado ku adkaato, inuu tasbiixsado ay ku adkaato. waxyaabaha qalbiga ee ku xasilaan oo ku dego waxa kamid ah xuska Allah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ala bi dhikrillahi tadma'inul qulub. xuska Allah ay qulubta ku degtaa. marka walaalayaal qulubta waxyaabaha ka feedo mugdiga iyo maaragtay dunuubta waxa kamid ah al-istighfar. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay istighfarta inuu qalbiga ay nadiifiso, ay dahirto,
ay maaragtay ka dahirto xumaanta iyo maaragtay mugdiga iyo dalaamka koray. marka walaalayaal insha Allah taala aan badin xuska alle si Ilaahay subhanahu wa ta'ala ogaaw waa cuquubo Ilaahay kugu ciqaabay hadii maaragtay aayad quraan hal aayad oo quraan aadan maanta sidii saak qorraxda u dhalatay ee u dhacday aadan akhrin karin laakiin heesaha maaragtay aad u xiis qabta hadii laga damiya xanaaqaysid laakiin aayad quraan marka lagu shido aad laga yaabo in maaragtay aaba sii jeesanaysid waxa ku sii jeedinaya adiga ma aha waa shaydaankii ayaa qalbigaada degay maxaa yeelay shaydaanka qalbigu u dagaa suurad dhan ay Ilaahay quraanka uga sheekay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شيطانك قلبك دق سورة داس إلهي وشيكي حتى سورة داس فسر كذا ابن كثير وحال صورنا إنه نبي عيسى أو معرفة أو ديست إله سبحانه وتعالى ماشي قلبك وكدقه شيطانك إلهي وتسعي ويرادي مركا قلبك شيطانك مال أي كلها سمعت أي كلها سيد أحاديث النبي وكشاغي قلبك محلك شيطانك وكلها يهي حدي عاد شيطانك اسكنارتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آترى هذه إلهي ودوات وحسك الله عاد بدي سيد شيطانك هذا ضعيف أيون نقنايا مد الليسان والضعيف أيون نقنايا هدي آدن إلهي حسين أو إلهي أد كفواتد شيطان كذا مد حق بدن ونقنايا أو أد حق بدن بالمركز دنبو حق جارسينايا إنه أذيك معمولو أو معرتي الدنيا ده أو كوجو هاللي الدنيا ده هي النفط هذا معايا النفط هذا وحي كم تاي أفر عدو أيا لا عدو كواد والنفط عدي كوجو جرتو معايا النفط هذا وحي جعشها وحي جعشها نفط هذا وحي جعشها وحيابها أو ما عرفتي أو لقى حرم يجعشها ونهى النفس عن الهوى أي إله سبحانه وتعالى كتل مان قرآنك إله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إله سبحانه وتعالى جنة أبلان قاد قفك النفتي سوحي جعشها كرره ومعي نفط وحي جعشها هاي نوحمها ولن أي كل جعشها وناقني كل مرة بتنفط وحكم إذا عدو قاد الله وحواي شيطانك إلهي سبحانه وتعالى وحولا إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا شيطانك عدو أيو إذنية هاي أيو إلهي سبحانه وتعالى عدو كيشت عدو قسد حد وحواي الدنيا ده إلهي سبحانه وتعالى وحولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا دي نولش عن دو يسان إذن كذين عدو قاد أفراد وحواي هذا مركا نفط هذا iyo shaydaanka iyo adduunyada iyo hawadan waxa waay rabitaanka naftaada waa inaad la dagaalamtid oo nafta aad ka reebtid waxa ay jeceshahay wanaha nafsa anil hawa marka naftaada waxa ay jeceshahay oo hawadeeda iyo rabitaankeeda ka reeb marka insha Allah taala walaalayaal subscribe daha like daha share gareeya إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبرينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك دعاء سأيو النبي صلى الله عليه وسلم كدو عيسن جيران كدو عيسن إلهي يو قلوبت هذيك آيارك ركتت دينت إلهي قلبي جين دينت هذا كسك مرك ولا إن شاء الله تعالى جنالك سبسكرايب لها لايك لها شير قرايه فافية وهذه سلامة يا دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.